Dowladda Turkiga ayaa ka shaqeynaysa sidii Soomaaliya iyo Kenya isugu keeni lahayd miiska wada hadalka si loo xalliyo dacwadda badda ee u dhaxaysa labada dal iyadoo dacwadan ay taalo Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ. Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa booqasho ku iman doona magaalada Muqdisho iyo Nairobi horaanta bisha soo socota ee Maaj isaga oo kulamo la qaadan doona madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Farmaajo iyo Uhuru ayaa bilihii la soo dhaafay uusan xiriirkooda wanaagsanayn, sidoo kale waxay Soomaaliya u bareertay in gabi ahaanba ay jirto cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya, sida laga soo xiganayo ilo xog ogaaliya madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu aad u daneynayaa in labada dal ay xal nabadeed ka gaaraan dacwadda badda oo ahayd isha ugu weyn ee khilaafaadka labada dal ee u dhaxeeya. Turkiga waxa uu dhexdhexaadintan uga faa'iideysanayaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya kala dhexeeya. Sidoo kale Turkigu waxa uu Kenya iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir ganacsi oo ballaaran u arkaa laba dal oo door fiican ka ciyaari kara saameyntiisa qaaradda gaar ahaan Geeska Afrika. Maxkamadda ICJ ayaa dhawaan ku gacan saartay codsi ay dowladda Kenya markii afraad ku dalbatay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda, waxa ayna ballantu tahay in 15 bisha soo socota ee Maaj loo fariisto dhageysiga kama dambeynta kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Labada dal ayaa biyaha ay isku haystaan lagu kala saari doonaa sanadkan gudihiisa, waxa ayna maxkamaddu kiiskan ka gaari doontaa go'aan aan racfaan lahayn. dhanka kalena wararka aan ka helayno deegaan dhinaca bari ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi gelinkii dambe ee shalay uu ka dhacay weerar lagu qaaday dad shacab ah. Ninku hubaysnaa qori AK-47 ayaa waxa uu weerarkaasi loo adeegsaday rasaas ku qaaday 5 qof oo shacab ah kuna sugnaa deegaan lagu magacaabo Gadoon oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay qof ayaa ku geeriyooday weerarka, halka 4 qof oo kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen oo rasaasta lagu furay uga dhacday meelo halis ah iyagoona la geeyay xarun caafimaad. Wararka ayaa intaasi ku daya in weerarka uu la xiriiray aana qabiil kadib markii ninka weerarka geystay uu kol hore uu laayay nin ehel ay ahaayeen isaga oo ninka halkaasi uu ka baxsaday. Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Galmudug ayaa lagu soo waramayaa inay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku raadinayaan ninkii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud. Deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxaa horey sidan oo kale uga dhacay weerar khasaare kala duwan geystay iyo dalal qorsheysan oo la xiriiray aanooyin qabiil, waxaana maamulka Galmudug ku guuldareystay wax ka qabashada falalkaasi. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh u taageeray in xayiraad la saaro saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday golaha. Saraakiisha la sheegay in golaha ammaanka uu liiska waxa loogu yeero argagixisada ku daray ayaa lagu kala magacaabay Abuukar Cali Aadan oo ku xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab ah, Macalin Ayman iyo Mahad Karatay. Wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona ayaa sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa dowladda Mareykanka ay golaha ammaanka ka dalbatay in liiska argagixisada lagu daro 3 sarkaal. Erika Bark-Ruggles oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska arrimaha hay'adaha caalamiga ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa arrintan ku tilmaamtay tallaabo muhiim ah oo hore loo qaaday dhanka xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya. ugu dambeyntiina muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xuseen Yuusuf Cigaal ayaa kamid ahaa Soomaalida degan xaafadda Entomont ee waqooyiga London, waxaana lagu helay in si bareer ah uu u dilay xaaskiisa. Xuseen ayaa waxa maxkamadda la soo taagay ku heshay dambi ah in uu dilay xaaskiisa Marin Ismaaciil 6 Abriil sanadkii 2020, waxaana lagu xukumay xabsi daayin. Xuseen ayaa maxkamadda marka sheegay in cudurka corona uu hayay oo xaaskiisa ay tiri guriga iiga bax oo corona uu waalay uu sidaasi ku dilay xaaskiisa, sidoo kalena uu sheegay in uu isdifaacayay. dambi baarayaasha qaarkood ayaa sheegay in markii ay arkeen meydka gabadha ay aad uga naxeen sida uu u dilay, isla markaana baaritaankoodu u muujiyay in dagaal dhicin ee gabadha la dilay.
xuseen oo haatan jira da'da 66 jirka isla markaana ahaa darawal ayaa qaadan doona xabsi cimriga ku furta waxaana soo dhaweeyay xukunkaasi ehelada labada dhinac.